maanta waa bisha May 25/2017 shirkii golaha wasiirada oo tirsigiisu ahaa 220 una gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaa ka soo baxay golaha wasiirada dhowr qodob waxaa la gudoomiyay oo ka soo baxay golaha wasiirada in aan la aqbalin lacag dhan 2,000 oo 2,000 lacagta 200,000 ee dollar ah ee dawladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya tiri waxaan ugu deeqnay maamulada Soomaaliya oo aanay Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ahayn waxaan u sheegaynaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal jira oo madax bannaan waxaanu kale u sheegaynaa dawladda Soomaaliya in ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka jirto qorsho ku salaysan ka soo kabashada abaaraha laguna ururinayo lacag dhan 10 milyan oo dollar lacagtaas 3,281,940 dollar hadda ay tahay wax soo xirooday iyo wax lagu baaqay in la soo xireeyo aanu filaynaa si dhaqso ah u soo xirooto 4 milyan dalkaanu saaxiibka nahay ee Imaaraadka Carabtu ay ku beeqeen 2 milyan oo DB iyo 2 milyan oo dawladda Imaaraadka Carabta ah Sheekh Maxamed oo 500,000 iyo milyan iyo badh dalka Carabta waxaanu filaynaa sida markaanu eegnay sida ay hawshan u socoto iyo laxaadka iyo sida ay u ajiibeen baaqa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay lacagtanu noqonayso mid ka badan aadna uga ballaaran sidii markii hore loo qoondooyay waxaanu kaloo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad caasimadda gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinkaba in ay ka dhiidhiyaan quursiga maalin walba dawladda jaarka aynu nahay Soomaaliya ay ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madax bannaanideeda ay quursanayaan kuna bedelaan arrinkan ficil ay ku ururinayaan barnaamijka ka soo kabashada abaaraha adduun weynaha iyo dawladda Soomaaliya aynu jaarka nahayna u cadeeyaan inay ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland tahay dal jira dal madax bannaan dal isu damqada dal isku tashada marnabana sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo in badan sheegay hadday 100 sanadood qaadanayso aan qayb ka noqonayn Soomaaliya iyo waxa ay ku tilmaamaan gobol maamuleedada Soomaaliya waxa kale oo la isla qaatay in golaha wasiiradu ee fadhigan maanta tirsigiisu yahay 220 ay ku darsadaan wasiir waliba uu bixiyo lacag dhan 500 oo dollar oo ku darayo barnaamijka ka soo kabashada abaaraha agaasimayaasha guudna 200 oo dollar agaasimo guud oo waliba lacag dhan waxa kale oo madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu sheegay in Puntland iyo Somalilandba ay dawladda Soomaaliya u saxeexday heshiiska dekedaha Boosaaso iyo Berbera waxa kale oo raaciyay
in dowladda Somaliland ay tahay dowlad ka baqanaysa shacabka jamhuuriyadda Somaliland oo sababta aanay u sheegaynin ay sidaa tahay. waxaan leeyahay abtigay dowladda Somaliland ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo garwadeenka ka yahay ama madaxweynaha ka yahay waa dowlad la doortay oo shacabka jamhuuriyadda Somaliland ay dooratay. waa dowlad qandaraaska u dhaxeeya isaga iyo shacabkooda ay tahay mid runka sheega. waxaa kale oo aan u sheegayaa horta Puntland baad ka warantay oo Soomaaliya ka mid ah. Somaliland waa dal madax bannaan, waana dal uu u saxeexay DP World wasiirka khaarijiga ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Sacad Xaaji Cali Shire. golo fagaaraana lagu saxeexay laguna shaaciyey TV-yada iyo website-yada iyo jaraa'idka adduunka oo dhan. waxaa kaloo aanu leenahay hadday Soomaaliya saxeexday madaxweynaha Soomaaliya imaaraadka intuu yimaado muu dacwoodeen oo imaaraadka muu baryeen oo ma yidhaahdeen arrintaa hala joojiyo ama aanu qayb ka noqono. waxaanu kaloo leenahay golo fagaaro oo adduunkoo dhan joogay ayaa DP World lagu wareejiyey. berbere maalintii lagu wareejiyey hadday saxiixeeda leeyihiin dee inay yimaadaan bay ahayd ama inay ka hadlaan ama inay sheegaan. iyadana dee arrintuu xado ma aha ama meel gaar ah lagu wada hadlo. waxaanu leenahay saldhigga berbera iyo DP World dowladda jamhuuriyadda Somaliland cidna u fadhiisan mayso. xuduudada jamhuuriyadda Somaliland cidna u daba fadhiisan mayso. saxiixiyadeedana adduunkuna waa ogyahay, caalamka oo dhamina waa ka warhaya, Somalilandna way ogtahay. fagaarayaal baa lagu saxeexay. waxalla wixii aanu caalamka la gelaynana cid aanu u daba fadhiisanaynaa ma jirtee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo cidda u higmado ayaa saxiixyadaas leh. waxaan kaloo aan doonayaa inaan la wadaago ummadda jamhuuriyadda Somaliland in shalayto shir saxaafadeed oo ballaaran uu ka dhex dhacay saxaafadda jamhuuriyadda Somaliland iyo xubno ka socda dowladda jamhuuriyadda Somaliland. shirkaas arrimo badan iyo howlo badan ayaa lagaga wada hadlay. waxaana shirkaas u ahaa muwaadiniin aayahooda dalkan ka wada hadlaya. saxaafadda jamhuuriyadda Somalilandna waxaa la isla qaatay ama la isla qabaa ummadda jamhuuriyadda Somaliland oo dhimanay ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mar walbana uu cadeeyay waxa weeye in saxaafadda jamhuuriyadda Somaliland ay tahay mid madax bannaan oo arrintaas waxba ku jiro. midna dalkii shirkaas shalay ka soo baxay waxa ugu horeeyay oo ka soo baxay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu cafis u fidiyey wariye Cabdimaalik Muuse Caldoon oo ahaa wariye maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay ku xukuntay 2 sannadood dambi qaran uu galay awgeed. isagoo madaxweynuhu tixgelinaya saxaafadda jamhuuriyadda Somaliland qoyskii muwaadinkaas Cabdimaalik Muuse Caldoon madax dhaqameed fara badan iyo codsiyo badan oo ka yimi international community-gaba ama dalalka jaarkaaba madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu gartay muwaadin wariye Cabdimaalik Muuse Caldoon inuu noqdo muwaadin xor ah. maanta sidaas ayaa lagu sii daayay. waxaa kalaanu ugu baaqaynaa cid kasta oo jamhuuriyadda Somaliland
cid alle cidduu doona ha noqdo wariye iyo muwaadin kastaba in nabadgelyada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan aanay ahayn mid gorgortan ku jirta shuruucda dalkana la dhowro wax alla wixii waxyeelaynayana madaxnimada iyo jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda somalilan isla gaadhay ay tahay dembi qaran aad iyo aad baan idin salaamaya mahadsantiin maanta waxaa keenay anagu horta dee goboleed ma nihin gobol caliow anagu gobol soomaaliya ka mida gobol maamuleedada la sheego anagu ma nihin waxaanu nahay dawlad madax bannaan ummad madax bannaan dal iskii u jira oo la yidhaahdo jamhuuriyadda somalilan ayaanu nahay waxaa kale oo saad ka warqabto annagu dee si walaaltinimoa ayaanu wax ugu geynay markii hore aanu taakulaynta aanu ugu geynaynay tii hore ay keeneenna iyadugu ay keeneen jamhuuriyadda somalilan bay soo mariyeenoo ceeb damay samayn waxay yidhahdeen jamhuuriyadda somalilan baan u geenaynaayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan bay u keeneenoo halkan iyo nidaamkan ayay soo mareen dowladnimada iyo qaranka jamhuuriyadda somalilan siduu ahaan jiray maanta waxaad mooddaa dowladda uu madaxweyne farmaajo uu ka madaxda yahay inay hab ka duwan ama waxyeelaynaysa xidhiidhka inaga dhexeeya oo ahaa in aynu nahay laba dowladood oo walaalah ama jaar ah oo isqadariya uu tii ka tallaabsadayoo oo uu doonaya inuu inaga dhigo 6 maamulada goboleedyada soomaaliya maxaan ku dhahdaa ka jira waxaanu leenahay kama midnihin waxaanu kaloo ku daraynaa baaqan gobol iyo qof jamhuuriyadda somalilan ka tirsan oo lacagtaa aqbali karaa ama qaban karaa inaanay jirin dembi qaranna ay tahay hadduu aqbalo wax ummadda jamhuuriyadda somalilan ay gaadhay inay arrintaa maxaan ku dhahdaa ay aqbalaan hadday sida jaarnimadu ay tahay adduunyada dawladuhu ay noo bixinayaan ay habkeeda soo maraan waxaanu leenahay dib ha isugu noqdaan annaguba si aan ugu gurminay milgaha iyo maamuuska lahayd hadday leeyihiin waxbaanu isu taraynaa sidaanu u tarnay dee wax la diidaya maaha laakiin tanu midaanu aqbali karna maaha waa midaanu u aragnayn madax bannaanada iyada lagu maxaan ku dhahdaa lagu cawarayo waa midaanay ummadda jamhuuriyadda somalilan aqbalayn waa midaanu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanna aqbalayn sababta ay u doorteenna waa waxyaabaha noocaasa ee uu geesinimada ku yahay ee aanu aqbalayn aad baa umahadsantihin